إن شاء الله هدي إلى هيرادو عشر كان وحن سجارة وأرك دورنا وحلو يقانو leverage iyo margin waxa loo yaqaano ayaan rabnaa inaan si wanaagsan ugu aragno hadii la yiraahdo marka insha Allah aynu marka si u sii qoto dheer aan u sii dhaxgalna insha Allah waana very important waxyaabahan qaybtood inaan fahanno ama si wanaagsan u fahanno waxaan ka bilaabaynaa marka ama shaqadeena ka bilaabaynaa waxa loo yaqaano leverage ka ayaan ka bilaabaynaa hadii la yiraahdo leverage ka waxa loo yaqaano si guud waxa la dhahaa waa safe laba afle baa la yiraahdaa safe laba afle marka safeta labada afle waa garan kartaa afna adiga kugu dili kartaa afna waxba ku dili kartaa marka leverage ka dadka inta badan si khaldan ay u isticmaalaan laakiin haddaan si saxan u isticmaalno oo wuxuu yahay ahaan aan u isticmaalno oo kaliya waxa ay u badan tahay inaan ku guuleysan karno khasaaradeenana ay aad u yaraan doonto hadii la yiraahdo oo leverage ka la xiriirta basically marka leverage ku waa maxay saala fudud aan ku siinayaa intaan 10 iyo sharaxaad iyo sheekaba ku galin leverage ku waxa uu ka dhigan yahay nolosha caadiga ah tusaale ahaan waxaad rabtaa hadda inaad sonkor soo gadatid sonkor ay rabtaa inaad soo gadatid sonkor sa u soo gadatid ya sonkor ayaan leenahay ama sugar ayaa rabtaa inaad soo gadatid sonkortaan sa u soo gadatid shirkad baa rabtaa inaad kaga soo gadatid jumlo shirkadaha soo saaro caalamka waa la socotaa shirkadahaas markab ka yar ma gadayaan sonkorta marka markab sonkor ah hadda adoo bilow dukaanle hadda sonkorta bilaabay inta orodid markab kama bilaabi kartid sonkora sida daraadeed waxa la heshiisay qolo ay shirkadaha sonkorta keenay jumlada markaas waxa ku tiri walaalayaalow waxa la yiraahdaa anigu waxaan wataa $100 qiimihii jumlada ah san ugu helo maybe qiimaha jumlada maybe waa $5 ayuu $5 ku keenan 20 wasiyan marka waxa hartaa inaad qiimo fiican ku heshid qiimihii jumlada ah san ugu helo waxaad samaysaan boqolkiiba $1 qaada aniga 5 kiish baan idin ku leeyahay ma fahant 5 kiish igu dara markabkiina 5 kiish igu dara markabkiina marka markabkoodii hadii alaabti qaadaan oo meeshii alaabti ka soo gadayaan 5 kiish adiga ama 100 kiish marna laga ma gadeen marka laakiin hadda nimankan oo 10 kun oo kiish gadanaya yaa ku dhex darsantay marka markabkii saas uu alaabti ku doonay Brazil butay sokortii buu keenay sokortii haduu keeno adi waxa faa'iiday oo kaliya wax loo yaqaano boqolkaadi kiish baa faa'iideysa Soma hadii la khasaaro oo ay wax shaqeyn waayaana waxa qasaartaa boqolkaadi kiish adi boqol kiish ka badanna marna ma qasaaraysid marna ma faa'iideysid justi nimankaas asxaan waxay kugu galayaan si aad u gaartid macnaha oo shirkadda Brazil ku taalo jumlada wax u galis lagaaga soo gado ama India ku taalay lagaaga soo gado ayaad iyaga si dhex maraysa sidaas oo kale ayaa brokersku waxa ay keeneen wax la yiraahdo leverage manaha waxa la broker bixinay iyagoo dhan ba bixiyo wax hada iska kulli ay wada bixiyaan official ah oo any broker waa wada bixiyaan kulli wax oo ma aha sira ama macnaha maxaa la yiraahdaa ay hooseysa marka brokersku dhan way bixiyaan marka brokerku caadiyan laba qaab u trade gareyn kartaa ina lacagta dhan soo wada qaadatid salahan hadda daartid inaad trade gareysid account one lot in a trade size gashid ama size one lot waa ki halka bib $10 u dhigmay ada 5 bib faa'iidad 10 macna $10 ay noqonaysa marka waa one bib one ki bib baa $10 account one bib hadaarti inaad ku trade gareysid waxa laga rabaa $100,000 in account-kaada ku jirto $100,000 hadaarti bila leverage inaad ku trade gareysid no leverage hadaarti no leverage wax leverage u baahan tahay ma jirto $100,000 hadii account-kaada ku jirto bila leverage ayaa trade gareyn kartaa oo one lot ayaa ku trade gareyn kartaa account one lot ayaa ku trade gareyn kartaa all right sababta waa 100 100,000 oo unit weeye 100,000 oo unit oo lacagta ay isticmaalay sida ayaa laga rabaa marka taa waa sidaas all right marka waxa rajayna marka isla fahnay okay qasab ma aha inaad 100,000 ku gelisid hadaad ka waran $1 kaliya inaad ku gashid ya $1 ya $1 hadaad inaad ku gashid ka waran sam weeye waxaad u baahan tahay size $1 u dhigma ayaad u baahan tahay inaad maartay isticmaashid marka sidaas oo kale hadaad rabtid inaad maxaa raahdaa trade gareyno $1 account halkii size baan ku gali karno $1 waxaan u baahanahay ugu yaraan account-keena inay ku jirto $10,000 inay ku jirto ayaan u baahanaa marka wax rajaynaynaa markii isla fahantay lot size-ka marka lacagta inta la eegna waxa laga yaabaa inay nagu adag tahay
oo aynan heli karin macnaha hada 10,000 oo cash hal mar inay heshid ama 100,000 oo dollar oo cash inay hal mar heshid marka bila leverage saasi ahaan lahayd suuqa marka waagu hore dadka retail traders ka ma trade gareyn jirin waayo awoodba uma lahayn suuqa ama size-kii laga doonayay maba haysan marka maba ku trade gareyn karta akoonki therefore marka leverage baa yimid leverage marka maxay tahay waa sidii oo kale kambaniyadu waxay dhaheen shardigii requirement-igi suuqa caalamiga anaa ku buuxinayna adiga kaliya intii waxa laga rabaa qayb kamid ah lacagta inaad dhigatid marka tusaale ahaan maxaa raada inkastoo aan doono qayb kamid ah tusaale ahaan adoo lacag kooban aad dhigan kartaa tusaale ahaan $500 oo kadibna size inta leeg waa trade gareyn kartaa laakiin wixii khasaare ah waxa leedahay lacagtaadii wixii aad khasaartay baad leedahay wixii faa'iido ana waxa leedahay lacagtaadii waxaad faa'iiday waa lacagtaadii un size-ka kaliya wuxuu leverage-ka wuxuu ku siinayaa awood kaliya macnaha inaad trade one lot aad geli kartid bas buu ku siinayaa wax kale oo ku siinaya ma jirto maxaa raada inaad 100,000 haysatid oo dayna ma aha oo marka trade 100,000 aad dhigi kartid ma aha sheeko saasa ma aha oo iska taajiri lahayd ama shirkadaha meel isgelin marka meesha lacag lagu siinayo ma jirtaba lacag haysatidna ma jirtaba kaliya requirement-igi ayay ku buuxinayaan si aad trade-ka u gashid one lot-ka marka akoonka dhan de hal mar baa la fariisinaya kaliya wax oo macnaha trade lagu sameeyo ma akoonkaada dhan hal mar baa lagu sameeyaa leverage good baa lagu siinayaa kadibna marka saas kugu activate gareysmaya one of the reasons many people are attracted to forex compared to other financial instruments sababaha keenaya in forex-ka aad loogu soo yaaco ama loo attract gareysto oo attracting uu noogu sameeyo oo dadku ay aad u jecel yihiin forex-ka marka loo fiirsho waxyaabaha kale oo la trade gareeyo sida stock waxa keenaya sababtoo ah leverage-ka ay aad u badan stocks ka qaybtood leverage dhanba male sababtoo ah jasoo dhan lacagta waxa laga rabaa 100,000 inaad dhigatid konton inaad dhigatid marka maba leba leverage qaybtood kuwa qaybtood 1 to 1 way hal xabay kugu darayaan wax noocaas oo kala so you can usually get much higher leverage than you would with stocks macnaha stocks-ka leverage-ka ka heli lahayd mid ka badan ayaa ka heli kartaa forex-ka haddii la yiraahdo right so marka leverage-ka marka waa sidaas alright marka waxaan rajeynayaa marka inaan isla fahanay waagaag marka waxaan rabnaa wax yarna fiirino akoonkan leverage explain leverage-ka inaanu fiirino saan ku sheegay akoon one standard lot ah oo one standard lot ugu yaraan waxaa la doonayaa in $100,000 ay kugu jirto saad u gali kartid one lot trade one lot ah oo halkii dollar halkii bib $10 ka faa'iideysid halkii bib $10 ka faa'iideysid waxaad u baahan tahay minimum 100,000 ayaad u baahan tahay haddii kale ma kicin kartid trade-kaas marka nimankan waxay ku siinayaan leverage awood siin therefore marka hadda tusaale ahaan haddaad leverage-kaadu yahay 4 to 1 marka 1 to 1 waxbaa la isticmaalaa ma fahantay 500 to 1 1000 to 1 ba xitaa jirta 400 to 1 akoon hadda haysatid imise lacag aad u baahan tahay saad akoon one lot u trade gareysid inaad dhigatid akoonkaada waxaad u baahan tahay $250 u baahan tahay saxtan ku timid $250 waxa ku dhufataa 400 intee weeye 100,000 ku soo baxaysa 100,000 marka waa ku buuxsamayaa sababtoo ah leverage waxa haysataa 400 ayaad haysataa therefore marka trade-ka noocana awooda u leedahay inaad kicisid trade-kan $10 awooda u leedahay inaad kicisid oo one lot ah ya laakiin la soco macnaha trade-kan hadii uu kugu dhaqaaqo in ka soo ku doonaa waxa weeye intii kugu jirtay ka badanna ma qasaari kartid intii kugu jirtay ka badanna ma faa'iideysid macnaha faa'iidadaadu waxay ku xiran tahay intaad kugu jirta macnaha nasiib way hadaa one lot see gashid maybe lacag 200 oo kale iska heshid maanta laakiin hal mar kugu dhaqaaqo intoo kalena waa qasaari kartaa hadii akoonkaada 200 ka tahay oo one lot aad ku urud marka sidaas waa qalad qofka sida waa in risk management wax la yiraahdo isticmaashid oo percentage aan ku xisaabtantid in kooban salahan 200 ka waa in dhahdid size walba trade walba galayo $10 ka badan ma u galin aan khasaaro saas oo kale waa in dhahdid marka laatan ka raadis wax noocaas markaas oo kale waa guuleysanaysaa waadna faa'iideysa hadii la yiraahdo waaga marka sidoo kale akoon ka waran akoonkaada haduu yahay leverage-kiisu 200 haduu yahay ka waran lacag intee u baahan tahay 500 u baahan tahay saa u trade gareysid one lot right marka almost taana waa sidaas waaya marka waxa ku haray 100
haddii leverage-kaadu 100 yahayna lacag intee u baahan tahay $1,000 saa u trade garaysid akoon standard lot ah oo 100 kuna right marka ama lo one lot ugu gali kartid marka ogow mar walbana margin requirement-igu ayaa daba socda margin requirement-igu mar walba wuu sii badanayaa marka hore aad u yar yahay margin-kaadu aad u yar yahay haddana wuu badnaanaya haddana wuu badnaanaya ya marka margin requirement ayaa jira ya inkastoo margin si gaar u sharxi doono marka aan marka sharaxna wax yar leverage-ka muxuu ka dhigan yahay akoonkaada leverage-ka haduu yahay leverage-yadii hore leverage aad u badan arkaynay laakiin hadda waxaan aragnaa leverage konton ah ma fahamtay almost 400 bay ahayd 400 to 1 300 to 1 100 to 1 ayaa arkaynay 100 to 1 hadda konton to 1 arkaynaa talada koowaad horta leverage ku siinaya wax waaye intaanan sharaxaadiisa ku sii dheeraan always ma u baahnid leverage badan maxaan ku yidhi uma baahnid leverage badan uma baahnid haba yaraatee waxaad u baahan tahay leverage aad u kooban ayaad u baahan tahay leverage badan uma baahnid waaye marka leverage wax yar aad u baahan tahay tusaale ahaan akoonkaada hadduu hadda leverage-kan laftigiisa aad u yar yahay marka konton to 1 inay isticmaashadu way fiican tahay waxaa isticmaali kartaa maxaa la yidhahdaa 100 to 1 adi ha ka badin 100 to 1 ha ka badin ayaan ku dhihi lahaa waayo wax macnaa kuba jirto in leverage-kaadu weynaado just kaliya iimaanka inay iska qaada laga yaabaa oo trade khaldan gashid marka leverage-kaadu inuu yar yahay ayaa ku wanaagsan right marka waayo muhiimadu leverage-ka ma lacagta meesha laga sameeynayo lacagta wax laga sameeynaya inta khasaari kartid iyo inta faa'iidi kartid halkaas weeye ka soo qaada akoonkeena hadda haduu yahay $5,000 ya oo leverage-keenu yahay 50 to 1 leverage inta aan haysano macnaha waxaan trade gareyn karnaa markiiba 250,000 akoon u dhigmaan trade gareyn karnaa ama 2.5 lots 2.5 lots waxa laga wadaa halkii hal lot $10 ay ahayd laba lot waa 20 ma fahant marka iyo bar 25 marka markiiba halkii bib 2.5 lots hadaa gashatid halkii bib $25 waay oo khasaara ama faa'iida halkii bib $25 faa'iidaysa halkii bib $25 ayaa khasaaraysa waa hadaa 2.5 lot aa gashatay lotka waa meeshii la gelinaya okay marka maxaa la yiraahdaa kaba soo qaad hadiiba 1% aan rabno inaan khasaarino ugu badnaan 1% kaliya akoonkeena waxaan rabnaa inaan boqolkiiba hal ka badan aanan u ogolaan halkii trade sida caadiga ana halkii trade waa inaadan u ogolaan wax ka badan boqolkiiba hal ilaa 3 iimaanka markay si qaadi 3 oo gacantaada fariisto aad libaax noqotid ama libaaxad laakiin marka hore boqolkiiba hal ayaa ka badan in fact boqolkiiba hal xitaa inaa ka yareysid ayaa la rabaa marka halkii trade 1% oo akoonkaada ka mid ah baad u khasaarinaysaa saa u gashid 2% waa ka raadinaysaa oo kale macnaha faa'iida kada qasaartay maxaa qasaartay boqolkiiba hal hadaa faa'iida maxaa faa'iiday boqolkiiba 2 ama boqolkiiba 3 way kugu xiran tahay hadba istaraatiijiyadaada ku xiran marka basically waa sidaas conceptigu marka boqolkiiba hal wax ka badan waa inaad trade-kaada ogolaan inaad khasaartid boqolkiiba hal ka badan waa inaad ogolaan marka soo qaad akoonkan ayaan rabnaa leverage-kii baan rabnaa inaan fiirino sidoo noqonayo marna leverage-kaadu badnaanaya marna uu yaraanaya marka leverage-kii hadduu content wan yahay macnaha content lagu dhuftay 5,000 waaye 250,000 noqonaysa marka 2.5 ku geli karaa size-ka $50 waxay noqonaysaa riskigi 1% de 5,000 marka 1% lagu dhufto waa $50 ayaa 1% ku ah ma fahant halkii bib $25 faa'iidaysa ama khasaarta waa marka ku gashay 2.5 oo percentage-kaada riskiga mar walba waxaan rabnaa inay noo noqoto 1% ya marka tusaale 1% markay ku noqoto laakiin la soco haddii laba jeer kaliya uu stop loss laba bib kaliya hadduu kugu dhaqaaqo already stop loss uu ka saaraya trade-ka laba bib kaliya hadduu kugu dhaqaaqo oo aad ku gashay 1% baa rabtay inaad khasaartid 1% aad rabtay in halkii trade khasaartid laakiin laba bib kugu dhaqaaqo maynaysa automatically 1% hore ka khasaaraysa oo trade-ka ka saaraya ya stop loss ku dhacaya stop loss waa meel ay leedahay inta ka badan khasaare ama u gali soo sida akoonka ka kacay waaye
okay 30 to 1 hadda isticmaalayno waxaan isticmaalaynaa 30 to 1 leverage macnaha oo 30 ayaa lagu darayaa marka 30 to 1 shan kun lagu dhuftay oo 150,000 lotka isticmaali karnana waxa weeye 1.5 hal lot iyo charger macnaha waa $15 marka $15 way bibkan faa'iideyno ama qasaarayno 3 times 3 times 3 saddex bib iyo xoogaa hadduu kugu dhaqaaqo $50 waa qasaartay $50 ku aan marba kula wado $50 waxay noo ahayd riskiga aan rabno inaan khasaarno ya $50 haddaad ku gashay saysa ku gashay uu ahaa 1.5 oo saddex jeer iyo 0.3 aduu saddex jeer hadduu kugu dhaqaaqo saddex bib hadduu kugu dhaqaaqo 3 bibs hadduu kugu dhaqaaqo $50 waad khasaartay waayahay 20 to 1 hadduu leverage-kaadu yahay oo 100,000 aad tirisaa ku trade gareyn kartid waa one lot baa markii trade gareyn kartaa one lot halkii bib waxaa khasaartaa $10 ama faa'iida hadduu kugu dhaqaaqo 5 bib hadduu kugu dhaqaaqo maxaa khasaartaa $50 hadduu kor ku aadana maxaa faa'iida $50 waaye haddii leverage-kaadu yahay 10 to 1 akoonkaadana weli 5,000 ay kugu jirto 50,000 ay value-ga ayaa isticmaali kartaa 0.5 ayaa ku trade gareyn kartaa halkii mar aad geli kartaa 0.5 waa macnaha waxa ugu badan ku trade gareyn karto waaye qasab maaha waxaan ogow ma ahan waxa ay tahay inay ku trade gareysid laakiin waxa ugu badan ku geli kartid 0.5 waa maximum ka ku geli kartaa haddii leverage-kaadu intaa yahay ka badan laguma ogolaba soo marka 0.5 hadday tahay $5 khasaartaa halkii bib marka 10 bib markuu kugu dhaqaaqo ayay $5 noqon kartaa haddii 10 bib faa'iidada ku aadana waa alxamdulillah 5 to 1 hadduu ku yahay leverage-kaadu 25,000 ayaa ku geli kartaa unit ah oo ka dhigan 0.25 lot size ahaan marka u gelin 0.25 baa qoraysaa 0.25 waxay ka dhigan tahay $2 iyo bar inaad faa'iidaysid ama qasaaraysa halkii bib markaan waa aragtaa bibku ku badnaanayaa 20 bib hadduu socdo suuqu waxaa qasaari kartaa $50 ama waxaa faa'iidi kartaa $50 marka waa fahmaysaa xikmad waxa weeye weligaaba horta kow trade markaa gelaysid waa in riskiga ay ku cambira tahay marka 1% tusaale ahaan $50 5,000 akoon haysta $50 yaa rabtaa inaad trade-ka ku gashid $50 ayaa rabtaa inaad ku gashid ugu badnaan macnaha $50 baa qasaari karaa waa ugu badnaan macnaha marka 1% tiri 2% waa 100 ma fahan marka $50 baa ugu badnaan ah khasaari kartaa $50 haddaba hadday tahay ugu badnaan inaad khasaari kartid normally trade-kaada waxa laga yaabaa in stop loss-kiisa 10 bib ama 15 bib ama wax la mid ay tahay marka stop loss-kaadii haddaa ka dhigtid haddaa ku gashid size-ka intaa la eeg oo 2.5 haddaa ku gashid ka waran adoo faa'iidi lahaa 2 bib kaliya hadduu dhaqaaqo horaa ka qasaaraysaa 2 bib waa $50 waa joogta marka lama rabo inaad 2 bib size-ka ugu weyn aad gashatid lama rabo waxaa la rabaa size macquula oo stop loss-kaada maybe hadday 10 bib ama 15 bib noqon karto 10 bib ama 15 bib inay labada midkood ay noqoto ama 0.5 aad gashatid ama 0.25 aad gashatid ya 25 waa $2 iyo xoogaa ma garanaysa ama 0.5 oo $5 ah halkii bib labada midkood inaad gashatid laga rabaa marka size-ka mar walba waa inuu ku jaangoysan yahay percentage-ka inta qasaaraysid laba size-kuna waa inuusan wax weyn aad iska gashan size-ka ina awoodid darteed waa inaad u gashan one lot baa awoodaa marka ma iska gashanaysaa one lot ma gashanaysid hadda one lot haddaa iska gashatid akoonkaada uu kicinaya degdeg buu ku kicinaya ama stop loss-kaada degdeg ugu dhacaya adoo faa'iidi lahaa xitaa sax fahamtay ma marka meesha la gelinayo waa meeshan haddii ilaahay kuu roon yahay lot size-ka meesha la gelinayo aan idhaahdo waa halkaa leverage-ka meesha la gelinayo okay marka margin muxuu ka dhigan yahay marginku wax weyn ma aha waa iska leverage-ku unbuu la shaqeeyaa is a good faith deposit made with the broker in order to open a position saan hore u sheegnay akoon 100,000 saad awood ugu yeelatid inaad trade 100,000 aad geli kartid waxaad u baahanayd haddii 400 to 1 uu yahay leverage-kaadu waxaad u baahan tahay 250 soo maha 250 ugu dhuftay 400 200,000 ayaa soo baxaysa marka mar walba inta u baahato ogaa kartaa leverage-ku intuu yahay inta ogaatid ayaa inta u baahan tahay lacag dhigan kartaa marka one lot ayaad dhigan kartaa lacagta 250 ka ayaa margin-ka ah
waa good faith oo aan lacag laga hayn lacag macnaha 250 ka dhigatay ayaa macnaha waa sida tusaale ahaan macnaha igula shaqayso oo kale waaye macnaha 250 kaas ayaa laga haynaya marka haddaad iimaanka iska qaadid oo hal say isku gashid oo 250 iska qasaarisid 250 baa qasaarta hadaa ku shaqaysatid oo ku faa'iidid oo kor u wadidna 250 baa ku badanaysa laakiin macnaha brokerku lacag ku hayeen ma jirto lacag kale uu ku siiyeen ma jirto so leverage marka awoodsin margin kuna waa percentage ka laga doonayo inaad dhigatid so marka waa good face so margin ma aha kharash laga rabo costina ma fiina ma aha but an amount set aside in order to trade laakiin waa lacag loo baahan yahay inay kugu jirto si uu yaraan trade-ka au kicisid يعني أودي وين على هذا size كاس أوكيس. A margin account in a standard brokerage account in which investor is allowed to use the current cash or securities in their account as a collateral. marka margin ku wuxuu noqon karaa maxay qaab collateral oo kala ayuu noqon karaa oo haddii aad trade qaldanta iska gashid oo aadan riskigi maamulin oo lot size-ki aadan ka faa'iideysan oo maxaa raada leverage-ki iimaanka iska qaadid oo iska wadid oo brokerka asagoo halkaas kaaga jiray trade-ka waa ka kansalaya waayo waxa gaartay intii loogu talagalay adaa adu ka bixin oo iska wadid isa ka kansalaya marka leverage-ka dhaaftid waqtiga inta loogu talagalay laakiin wax la og yahay official way inta loogu talagalay wax oo ma ahan ay qarqarsoon ma aha right marka basically marka conceptiga marka aan ku sheegayo waxa weeye leverage-ka waliga oo ma baahnid inaan one lot iyo wax la mid ah hore kaga bilowdid tusaale ahaan akoon 500 hadaa haysatid leverage-ka ugu badan waa inaad maaragtay wax yar $10 oo kale stop loss kaada ugu badnaan ay noqoto marka $10 maxaa la yiraahdaa leverage-ka $10 uga baahan tahay oo kale wuxuu noqon karaa horta wuxuu ku xiran tahay stop loss kaada inta leeg tahay maybe 10% 15% 20% stop loss ka inta bibay ku xiran laakiin basically 0.05 iyo wax la mid ah iyo 0.2 iyo waxa iyo 0.1 iyo 0.3 iyo waxa waa inaad ku trade gareysid inta badan oo aad u yar oo 30 centi 40 centi 50 centi ugu badnaa waa inaad qasaartid markaad iimaanka uga qaadid waa 1 oo ah $1 waa inaad meelaha soo dhaafin marka akoonkaadu 500 yahay ama wax la mid therefore marka horeba lot size leverage weyn lama doorto si aadan awood isugu yeelan awoodda u yeelatid adoon aqoon badan lahayn in akoonkaada si kicisa u badanta marka leverage-kaadu ha yaraado tusaale ahaan akoonkaadu 500 yahay isku day leverage-ka isticmaalaysid inuu aad u yaraado oo tusaale ahaan 200 ama 100 ay isticmaashid 100 ha ka badin haddaadan 50 iyo wax la mid ah qaadanin sidaba ana hadda waxaan kugula talinaya waxa weeye leverage-kaadu 50 ha noqdo ama 100 ugu badnaan 100 ama 50 laakiin technically 100 ha ka badin weliga Allah 100 ha ka badin leverage-kaada there is no single reason aad ugu baahan tahay leverage-kaada inaad 100 ka badisid haddaad sarifka taqaanid khabiir tahay oo wax taqaanid qolkaas intaas kugu filan sababtoo ah lacagta sarifka soo shaqeeyo waa gradual waxa sarifka lagu xisaabtamaya maanta ma aha trade-ka gashay inta ka faa'iiday waxa lagu xisaabtamaya wax weeye asbuucan intee ku faa'iiday bishan intee ku faa'iiday waxa weeye ugu dambeyn intee faa'iiday sababtaas waxa laga yaabaa 6 khasaare inay kugu soo aadanto ama 7 khasaare kugu soo aadanto marka haddaad leverage wali isticmaalaysa akoonkaada maxaa yiraahdaa degdeg baad isaga kicinaysaa soo ma akoonkaada degdeg baad isaga kicinaysaa marka basically waa sidaas marka always leverage yar isticmaal marka hore akoonkaada aad iska diiwaan gelinaysa leverage isticmaal yar maxaa la yiraahdaa size-ka ku galisida always in uu yaraado ayaa wanaagsan si xataa khaladaad badan ka dhacaya marka barbaraad ka tahay hadii xitaa khaladaad ka dhacaan aysan waxba aadan u khasaarin in fact inta hore wax barbaranaysid waxa iska fiican inaad ku garaacdid 0.01 horta suuqa aad ku fahantid oo 10 cent oo inta uu yar loo gali karaa standard account marka inta horta ku barbaro bal ku faharo horta bal suuqa inay raaci karto horta shuruucda u faham hadhowna shuruucda caadiga raac waxa jirta koorso dhan oo master class oo aan ku sharaxi doono maxaa la yiraahdaa risk management-ga oo ardada inta badan iska diiwaan geliya barnaamijka maartay 4 biloodlaha ay awood u heli doonaan hadii la yiraahdo oo loo sideynayo forex maartay risk management master class iyo xitaa tii psychology-ga oo master class kala ah very powerful waxaas oo dhan la isku kabay yaa loogu talagalay qofku inuu maartay aqoontiisa ku kabo as always right marka waxaan rajaynayaa marka inaan si fiican aan isula fahanay haddaad casharka ka daawanayso YouTube-ka fadlan subscribe sidoo kale video-ga fadlan like wax badan kaama qaadanayso like-ta guji buttonka
as always daarta koorsada iska diiwaangelisa linkiga hoose fiiri insha allah halkaas nagala soo xiriir haddaad website ka daawanaysid just 10 ku xiga naga stida insha allah guul fara badan waa injineer abyad salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu